inkastoo welihiiba shareemo ama saqda dhexe hurdada hurjaayuu la seexan waayo hamuum waan ku qabaa qalbiga waan kugu hayaa hedaydu waxay ku raacday habeen khayr lagu ducaysto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن ميل كستو aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan Banjir Media Production qaybihiisa kala duwan oo waqtiyada kala gedisan aanu idiin soo gudbino hadba waxyaabaha kala duwan ee aanu isleenahay bulshadu way xiisaynaysaa toddobaadkii hore waxaanu idiin soo gudbinay mid ka mid ah sheekooyinka iyo muxuu ahaayay maada barnaamij Banjir Media Production sheekadaasi falcelin fara badan ayay yeelatay oo dad fara badan ayaa Banjir Media la soo xiriiray waqti xaadirkana waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo mid ka mid ah sheekooyinka kala duwan ee aanu idinku talagalay sideedaba waxaad inta badan aragtaa dad iyagu jeclaysta inay bulshada waxay isticmaalayaan ka waaniyaan waanadaasi ma noqoto waana nasuuxa ama mid meel gaadha oo dadka dhagahoodu walaayaan sababtoo ah xataa wixii hadduu xun yahay oo qofku isticmaalayo waxaa dhacda in qofku aanu raalli ka noqon waxa qofkani isticmaalayo waxa qofkani ka wacdiyayo tusaale ahaan haddii qof qaadka cuno ama jaadka cuno qofba siduu yaqaano dabadeedna kaa cunaya jaadku waa dhibaato leeyahay kaba soo qaad qof baad u gudbinaysaa waxaad leedahay jaadku wallahi dhibaatadaas leeyahay adigina afkaad ku haysaa qofka aad u gudbinaysaa ma qaadanayo talada waan isfahamnay ayaan filayaa sidaas awgeed raalli hada sidaas awgeed waxa dhacday waqtiyada kamida ayaa boqor kamida boqoradii adduunka soo maray waxa ilaahay hibo u siiyay oo uu sameyn jiray inuu qofka ka wacdiyo ama qofka ku yiraahdo biidnillaahi kariim waxa iska daa intuu qofka madaxiisa gacantiisa saaro tusaale ahaan qofkii looga ducaynayo waa kan boqorka gacantiisina waa tan madaxiisa ayuu saa u saari jiray wuxuu jiray idanka ilaahay iska daa dabadeedna qofkaas sidaas ayaa ilaahay kaga kaxayn jiray kaga masixi jiray haddii ay tahay balwada qaybaheeda kala duwan iyo haddii ay tahay wax caafimaadkiisa dhibaato ku ah haddaba halkan oo ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo kala soo hadlayo meel u jirta caasimadda labaad ee dalka magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa dhacday in muxuu hayay islaan deganay inanteedii yarayd ama ay u ahayd sheekadu hadba kay doonto aan noqotay laakiin waalid bay u ahayd inantaa yar waxay isticmaali jirtay macmacaanka xalwada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale hariisada kadibna markay bil waxa caloosheeda ku gurto gabadhaasi way xanuunsan jirtay waa ilmaha yare islaantuna inantaa yar bay wadeegi jirtay aadna way u jeclay dabadeedna waxa dhacday islaantii dadkii booqanayay ayaa u sheegay oo ku yiri meed boqor hebel ba u geysay oo degan halka iyo halka meel waxay tilmaameen Hargeysa ilaa Burco oo kale isu jirta masaafo ahaan marka aynu eegno dabadeedna waxa dhacday islaantii sidii bay ku go'aan qaadatay way soo kaxaysay meel adigu muddo bil cala xaaliya loo soo soconayo oo habeen iyo maalin bale ayay ka soo kacitintay boqorkii waxay soo wado intaas oo caana maal soo socotaba way u timi kadibna waxa dhacday in islaantii ay boqorkii ku tiraahdo boqorow horta ka mid noqoto dadkii kuyuga ugu jiray boqorka kadibna ay ku tiri boqorow wixii aan ka caabanaynaa waa waxa tan yar baan jeclahay maadaama macmacaanka faraha badan ay isticmaasho inaad uga ducayso oo tiraahdo ilaahay idinkiisa iska daa dabadeedna boqorku markiiba mu oran hadalkii laakiin wuxuu ku yiri laba toddobaad kadib ayaad inanta yar igu soo celinaysaa islaantu ma awoodo iyo inanta yarba inay ku noqdaan halka ay ka yimaadeen muddo bila ayaa loo soconayaa balse waxa la go'aamiyay oo islaantii ay go'aan ku qaadatay inay marti ku noqoto hadba reerihii ku dhadhawaa boqorka labadii toddobaad way dhamaadeen inkastoo islaanta ugu dhamaadeen su'aalo maskaxdeeda ka guuxayay
oo ahaa talo boqorku muxuu idin la ballamay talo boqorku muxuu idin qabanaya talo mahanti buu idin siinaya ilaa muu oran kari waayin idamka ilaahay iska daa intaas waa fudayde adigu sidii waxay ahaataba labadii toddobaad way dhamaadeen islaantii iyadoo su'aalo fara badan isweydiinaysay boqorkii ku soo noqotay boqorkii wuxuu yiri tiyareed meeday waa tan islaantii way u keentay gacantii buu tiyareed madaxa saaray wuxuu ku yiri idamka ilaahay iska daa hadalka wuxuu ku xigsiiyay iska taga nabadgelyo dabadeedna islaantii maadaama ay ahayd islaan saaxiibul aqliya waxay tiri boqorow maalintii ugu horeysay maad oran kari waayin idamka ilaahay iska daayay intaad caawa tiri maxaad maalintii hore noogu oran weyday hadda waxaan ku sii dhawaan lahayd deegaanka aanu ka soo kicinay iyo halkii aanu ka nimi boqorkii waxa uu ku yiri waxa ila qurux badnaan weyday anigu waxaan ahay buu dadka aadka u jecel macmacaanka xalwada hariisada iyo qaybaha kala duwan ee macaanka sidaa awgeed waxa ila qurux badnaan weyday inaan qof uga duceeyo waxaan aniguba isticmaalo sheekada waxaan uga gol lahayn muhiimadu ahayd macnuhuna ahaa qofku waxa uu isticmaalo inaanay qurux badnayn inuu qof ka waanin karo ama uu ku oran karo iska daa waa mid kamid ah sheekooyinka kala duwan ee Banjir Media Production ay ku tala gashay si dhaxamaha isaga duulisan intiina ku sugan iyo guud ahaanba deegaamada kala duwan ee dunida qaaradaheeda kala gedisan wixii tafaasiila wixii sheeka waxaad nagala soo xiriiri kartaan Banjir Media qaybihiisa kala duwan wixii kalena comment ayaad nagu reebi kartaan insha Allah biidnillaahi kariimtiina sheekada haysa warnoo soo gudbin doontaan barnaamijkan oo kale intaaynu ku kulmi doono waa Maxamed Muuse Banjir oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh